maantana waxaan aad iyo aad oo dawladda oo muxuu ahaay beesha gaaljecel aan u sheegayaa in doorasho la aadin doorasho cid aadi karta ma jirto gabadhaas oo meel lagu sheegin waxa lagu haysta la ogaanin waxa lagu dilno cadaalad helin cadaalad ma jirto haddana cadaalad imaamaysa waa in gabadhaas cadaalad ay hesho haddii kale doorasho ma jirtaba kulan ay maanta iskugu yimaadeen nabadoonnada waxgaradka dhalinyarada beesha gaaljecel ayaa waxaa looga hadlayay ikraan tahliil faarax oo nolol iyo geeri aysan midna ku haynin muddo ka badan bil gabadhan oo 23 sano jir ah laguna magacaabo ikraan tahliil faarax axmed ayaa horey usoo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada muqdisho xilligii allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yirisow ikraan ayaa kadib u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA shirka ay iskugu yimaadeen nabadoonnada waxgaradka dhalinyarada ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay madasha baadigoobka ikraan tahliil faarax gudoomiyaha golaha dhaqanka beesha gaaljecel cabdiraxmaan sheekh axmed barsane waxauna sheegay in ay doonayaan in ikraan ay hesho cadaalad waxaan aamusnayn muddo 31 maalmood ah oo ay ikraan tahliil faarax ay maqan tahay ikraan ma ahayn qof caadi oo saakay jaamacad soo aaday ama iskuul aaday ama suuq cideeda inay ugu soo adeegto ku soo baxday ma ahayn ikraan waxay ahayd member ka tirsan dawladda Soomaaliya oo shaqaalaha ku ugu muhiimsan oo dawladda kamid ah intaasi waxaan u aamusnayn in dawladdu iyada ayaa dalka xukunta iyada ayaa dalka dawlad ka ah dawlad kale oo hadda dalka dhisan anagu hadda aan dareemayna oo ma jirto in iyada ay soo daahirsan ayaan sugaynay intaan ka badan waa aamusi weynay uur fiiqa ka ciyaaleeri uur fiiq ayaa kaciyo saa daraadeed dawladda waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddoonka baarlamaanka dhammaan hay-adaha dawladda ee maaragtay amniga waxaan ugu baaqaynaa in la helo 3 waxyaabood inaan helno kow waxa ugu horeyso gabadhanada ikraan tahliil waa inay heshaa cadaalad waa inay heshaa dawladdu waxay wax badan soo sheegtay inay ilaalinayso musuqa iyo bukhliga iyo xaaraanta ay ka hortagayso dawladdii hadda iyada ay ka soo yeertay dawladdu waxaan leenahay waa inay keentaa kow cadaalad in laga helo waa inay dawladda gacanta inaga saartaa gabadhayna ikraan tahliil faarax iyadoo nool inay gacanta naga saarto haddii la waayo inay meydkeedii meel ku sheegto ma u dulqaadanayno in ay iska maqnaato ikraan u dulqaadan mayno nabadoon cismaan macalin aadan ayaa tilmaamay inaysan jirin ubad in la iska qabsado la dilo ama la iska haysto oo aysan sax ahayn arrinka dalka dawladda uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay ra'iisul wasaare uu leeyahay hay'adaha madaxda oo kala duwan uu leeyahay marka in oo ubad dad as dhalay in la iska soo qabsado la dilo ama meel lagu haysto sax ma aha dawladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in arrintaas jawaab degdeg ah ay ka bixisay madaxweyne adaa u sareeyay dalka madaxda dawladda haday yihiin saraakiil iyo haday yihiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo inta kale ka hooseyso ubadaad dhasheen haddii ubadkiina uu maqan yahay xanuunkii idin hayn lahaay annahay annaga ogaada xanuunkii adig idin hayn lahaay ayaan nahaya waxaan rabnaa gabadhaas haddii la dilinay dadkii dilay in cadaalad soo taagtiin oo na tustiin oo qabrigeeda nageysiin meeshii lagu duugiyo ku dileen aad nageysiin haday ahayn aad maxkamadda keentiin oo gabartiin dambiga laga galay waa tan dadkii dambiga ka galan cadaaladda la marsiina aadna dhahdeen war cadaan rabnaa dawladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa war cad waxaan cadeen ma jiraan dalkan dawladda leeyahay waagi oo geedaha hoostooda waxa way qofka asoo ku angay la arkay lagu ma jiro gabadhan aydo suuqiso adeega lama qabsan gabar madax oo dawladda ka tirsanaa dawladda Soomaaliya waxaan ugu fadhinaa ikraan tahliil faarax anaga ahladeedayna adeeryaasheedana nabadoonadeedana waxaan afkooda ku hadlaynaa inta ikraan ka xanuunsan oo ummadda Soomaaliyeed aan matalayna aan afkooda ku hadlaynaa ugu dambeyn nabadoon Muuse Harun Aadan ayaa sheegay in muddo 3 maalin ah gudahood ay ugu baahan yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan dawladda uga soo jawaabto maqnaanshaha ikraan tahliil faarax kow iyo 30 maalmood aan sugaynay raqdeedana ma hayno ruuxeedana ma hayno waxay ku maqan tahay ma sheegi karna gabadhay haday nooshahay gacanta naga soo saarana dambigaas lagu haystaa hana la yiraahdo maxkamadda la keena haday dhimatay dadkii dilay waxay ku dileenay qaabkii loo dilay
dadkii dilay cadaaladda la keeno oo ikraan cadaaladda loo marsiiyo ayaan ka sugaynaa annaga wax kale oo sugayna ma laha dawladda annaga ma necbin madaxdayna joogto dawladayna waayo waxaan rabnaa in dadka gabadhayna aan raadkeeda iyo ruuxeeda aan helno mana u dulqaadan karnaa saacadaas wixii ka dambeeyana 3 maalmood gudaheed waxaan rabnaa jawaabeed cad in la siiyo maantana waxaan aad iyo aad oo dawladda oo muxuu ahaay beesha gaaljecel aan u sheegayaa in doorasho la aadin doorasho cid aadi karta ma jirto gabadhaas oo meel lagu sheegin waxa lagu haysta la ogaanin waxa lagu dilno cadaalad helin cadaalad ma jirto haddana cadaalad imaamaysa waa in gabadhaas cadaalad ay hesho haddii kale doorasho ma jirtaba